مسؤولين كترسان ركتا ganacsiga Soomaaliya ayaa maanta waxay gaareen magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud sida warkaan mar kale kaga soo diray magaalada Cadaado Daahir Farax xubnaha isugu jira mas'uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo ganacsato ka soo jeeda Galmudug ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Galmudug ayadoo garoonka diyaaradaha ay ku soo dhaweeyeen wasiirka ganacsiga dawlad goboleedka Galmudug maamulka degmada ganacsato iyo mas'uuliyiin kale ujeedka socdaalka wafdigan ayaa qayb ka ah in la dhiso rugta ganacsiga Galmudug iyo in ganacsatadu ay ka qayb qaataan arrimaha horumarinta deegaanada dawlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole oo ugu horeyn la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin imaatinka wafdigan ayna soo dhaweynayaan dhammaantiin waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada Cadaado caasimadda ku meel gaarka hadda oo ah Galmudug qaasatan airportka ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada waxaan ilaa saaka ilaa shal u taagnayn inaan soo dhaweyno ganacsatada Galmudug oo aan ayaguna ka warbixin doona wax u socdeen deegaankan ugu socdeen Abdi Abshir Dhoore oo wafdigan hogaaminaya isla markaana ka socda rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa sheegay inuu muhiim tahay ka qayb qaadashada arrimaha horumarinta ganacsiga ayna goobjoog ka noqonayaan dhismaha rugta ganacsiga Galmudug rugta ganacsiga Soomaaliyeed mas'uuliyad baa ka saaran in ay maamulka ganacsiga wadanka dawlad goboleedyada dhismaaya inay la shaqeyso kuwii horey u jirayna sida Puntland oo kale ama Jubbaland waxaa naga dhaxeeya wada shaqeyn aad u weyn oo inaan isbooqano inaan nidaamka shuruucda ganacsiga wadankan aan ka wada shaqeysano sadarteed muddo baan waxaan maqlaynay in Galmudug ganacsatada abaabul ay waday in ay sameeyeen in hadda labada maalmood soo socota soo gabagabayn doono in dhidibada loo taago rugta ganacsiga ee Galmudug sadarteed annagu goobjoogan ahaanayna wixii way aragnimaha haynana waan ku beerinaynaa hadii Ilaahay uu yiraahdo ugu dambeyntii waxa warbaahinta la hadlay wasiirka ganacsiga Galmudug Cabduladiif Cabdullaahi Warsame waxaana uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku faraxsan yihiin ganacsatadu inay ka qayb qaataan horumarka waxaana uu tilmaamay in dhici doonaan kulamo arrimahaasi looga hadlayo shirweyne weyn oo ganacsiga lagu yeesho oo looga hadlayo horumarinta deegaanka waxay runtii tusaale u yihiin in maaragtay hadda marxaladii la marayo horumarinta oo marba marxaladaha lagu soo jirjiray marxalad maamulka la aasaasayay marxalada siyaasadeed oo iska daba jijiitan ahaa marka waxaas oo Ilaahay maadi waa laga soo gudbay kullay waxay tusaale u yihiin marka ganacsataan iyo maaragtay imaatinkooda iyo ka qayb qaadashada maaragtay ishig barnaamijtii ku talagalka ahayd ee horumarinta deegaanka ahayd runtii tusaale u yihiin inay horumarkii xilligiisii bilowday Daahir Farax Ahmed